qaybta halkaas inuu kaga baxayna haye waxaan tagi doonaa caado dhinaca Soomaalida ka socota indhaweyd haye ubax qoorta la isu galiyo wala soo wada gelinaya ayaa la isu gelinaya haye nin u bixiyay meel markaad ku khudbadanaysid mid yar laba lagu gelin maayo 20 ilaa 30 marka qoorta bas ku noqonayso xagan ay kirmaysid sasad bixisantay mana hadli karayso markaad tiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim shab I don't know waxaan meesha laga keenay bal aynu guda gallo video clip yar oo laba qof wali qofka dambe oo aad u cadimi doono ninka dambe waa xirsi oo Soomaaliland imika waa hogaamiyaha xisbiga waddan laakiin nin baa aan ka horreysin doona ay dhibaysaba in la gashado haye isaga laftiisa gashanaya baladaan eegno oo igu dhigtay وانا كنتي على يعرف شيء هنا واحد يسوي يوم مركا هذا القناة ودي هذا اللي حول اسمه ذكر مركا وعليك السلام يا دمان مجتمع عالكم شوغا وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وعن بنتي عادي عاد كلنا هذا نقيا وكان نكر لما قبسن حرس ورت قيادك بحس مارت يقداياي والله حل markii waa ka socon kar laayay waa ka buuxiyeenay si gaariga ka soo saaray iyo jooji markuu yiraahdo shan baa loo gelinaya ubaxaasi wuxuu u baahan yahay in isna la xadido oo la yiraahdo qofku imsu qaadi kara waliba xirsana aad ma dheero wana gaaban ilaa 20 ma qaadi karo waa ku badan tahay waa ku badan tahay culayskaas faraha badan leh waxaan eegi doonaa magaalada Minneapolis nin baa kaligiis caalam saaray kaligiis taas waa cajiib markuu wixii ka yaabay nin ubaxyada Soomaaliya ka socda ayuu soo aan dhoofinba ayuu 9 ubax gashaday isaga bas galiye waliba soo dukaan wax iibsaday buu gashaday ayuu gashaday taas cajiib marka kaftanka siyaasadda ayaa hawsha daba gali doonta oo soo ogaan doona bal sababta oo ninkaas soo gashaday Saciid Atam oo magaalada Minneapolis nal degan bal horta marka hore aan ku daawasiyo wallahi ninkan waa kaligiisa wasga وشرحيه لكن ما شو شرح الى هذا ما قرينا انه فرماتشيسيه هنا laga yaade inuu khaatimiisay labada mid bay noqonaysaa Saciid Atam waa dadka magacoodu dhibo inta badan oo way talo markuu maxaad soo galo fadhiisto qofka garanaa markuu yiraahdo Saciid Atamkii ashabaab la moodaa oo Mareykan iska dhiibay haye waa la istaaga marka waa la wada hurufa warwakii waa la yiraahdaa qaarna waa boodaan waxa haddu saqarxin yaabada aye marka waxaan maray ubaxa uu gashaday inuu leeyahay hawlihii qarxintay waxayaan lagu tilmaamay ninkii mihiye iyo lagu tilmaamay xagga nabadda ayaan baalka u gashaday isaga intaan kaga gudbo Muqdisho hawlo badan baa ka dhex socda waa magaalo weyn oo caasimad maxkamado far badan baa ka jira maxkamadii ugu dambeysay ayaa waxa samaysay 30 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho ayaa intay qol galeen laba qol ayaa la ciyaar anu aanan jeclayn inta badan oo la yiraahdo ciyaarta niikada wali waxaan jeclayn qofka ka horreysiya ku soo dhawaada ciyaarta hidiyo dhaqanka dhaqan ma niikana wad leedahay hidiyo dhaqan oo sheegaysa waxa hidiyo dhaqanka la yiraahdaa waa inay noqoto wax adiga ay gabadhaad dhashay ama adiga wiilkaad dhashay aad wada daawan kartaan aad wada sheer garan kartaan haday ku noqoto waxa wiilka u diidan tahay ama gabadhaad leedahay iga baxan daawada hawshan marka dhaqan ma marka bariyahan dambana niikadii ayaa lagu sii talax tagay inna lillahi wa inna ilaihi qaawin waxa dhaanto marka maxkamaddu waxa ku xukuntay dhowr bilood oo xariga iyo in wiilasha timaha laga xiiro iyo in la ganaaxo mid kasta 1 milyan ilaa 2 milyan inta u dhaxaysa waqti la qabto wala qabtay soddon wala hayaa horta balan ku tuso maxkamadda iyo soddonkii gabdhihii wiilashii qolka ku nikinay oo xabsiga loo wado kuwan كما ضربوا كذي
saddex bilood oo xarig ah 1 milyan oo ganaax ah iyo wixii wiilal ah oo maaragtay meesha jooga intiiba makiinad looga xiro qalabka maxkamadda hor yaalla oo fiqsiga iyo xumaanta lagu galayna la burburiyo wala cali wala dirish tay ciyaareen ha waan kala xishoonaya inaan dadkeena daawanaya aan tuso laakiin waa mid lagu taxtay tay ciyaareen laakiin taa mid ka khafiifsan oo xogaan si dadku madaw eey karaan haddii mid si khafiifiyay aad loo khafiifiyay nin kamid oo ciyaaraya in mataqaana uu burur qofkaas waa burur bururka waxa la yiraahdaa marka dhinaca baydhaba iyo area marka ciyaaraha ayaa mindi la isku sarsaraa wala saraya qofku markuu dee murqaan dhaafo